Assalaamu calaykum daawadayaal. Magaaladan waa Tokyo, waxay ku taallaa bartamaha Japan. Waxa markii hore la oran jiray Edo, waxaana ahayd tuulo yar oo kalluumaysi. Qarnigii 15aad ayaa markii ugu horeysay la degay. Maantana waxa ku nool gudaheeda iyo nawaaxigeeda Great Tokyo, una soo shaqo taga dad kor u dhaafaya 8 milyan oo qof. Waa magaalada dadka ugu badan ay ku xiran yihiin dunida. Canada oo ah dalka labaad ee ugu dhulka weyn caalamka ayay Tokyo ka dad badan tahay. Tokyo dhaqaaleedu waxa uu kor u dhaafayaa ilaa 2 trilyan. Waxay ka dhaqaale badan tahay dalal badan oo ay ka mid yihiin Ruushka, Turkiga, Sacuudiga, Brazil, Italy, Mexico, Canada, South Korea, Australia iyo Spain. Waa dalalka safka hore kaga jira dhaqaalaha dunida. Marka laga reebo 7 dal dunida oo dhan, inta kale Tokyo ka dhaqaale badan. Waxay xarun tahay maanta 36 ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn dunida. Waxa ku yaala gudaheeda suuqa ugu weyn ee kalluunka lagu iibiyo dunida oo dhan. Waxa la sheegaa in maalinkii ku dhawaad 60,000 oo qof suuqaasi ka adeegtaan. Waxa ay leedahay ilaa 900 xarumood oo tareenada laga raaco. Tokyo dhexdeeda waxa ka shaqeeya tareenada lagu magacaabo bullet train ama tareenada xabadda ka dheereeya. Tokyo gudaheeda waxa ku yaala isgoys aad u mashquul badan oo halkii waqti ay ka gudbaan 3,000 oo qof. Waxa soo booqda magaaladan ku dhawaad 10 milyan oo qof oo ajaanib sanadkii. Arrinka cajiibka ayaa ah in Tokyo hawadeeda aysan diyaarad marin tan iyo dagaalkii labaad ee dunida kadib. Ciidamada Mareykanka ayaa maamula hawada Tokyo iyo nawaaxigeedaba, waxaana laga mamnuucay in diyaaraduhu dul maraan Tokyo. Magaalada Tokyo 2 madaar ay leedahay oo u jira masaafo 20 kiiloomitir ah. Madaarka Haneda ayaa ah kan afraad ee adduunka ugu mashquulka badan. 9 milyan rakaab ku dhow ayaa isticmaala sanad walba. Tokyo dadkeedu waa dad aad u shaqeeya oo 98% dadka shaqada u diyaarka ah waxa ay shaqeeyaan ilaa 18 saacadood, waana meelaha ugu shaqada badan dunida. Dakhliga soo gala sanadkii qofka Tokyo ku nool waa ilaa $70,000, halka cimriga qofka Tokyo ku nool uu gaaro ilaa 87 sano celcelisaan. Sidoo kale Tokyo waxa ku nool dad 100 sano kor u dhaafay oo kumanaan ka badan. Heerka horumarka aadanaha Human Development Index waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu sarreeya. Dhaqaalaha iyo hal-abuurka adduunka Tokyo kaalinta afraad ay kaga jirtaa.